قبيل ويدا ورجلي يقدا قبيل ويتولي يقدا قبيل قرما يقدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وذا لمانتين بكسور وذا برنامج كيني درين كداليراد وتطبعات كيبا هل مر أدوغا براتان إن هذا أمنتنا وكالكا داوتان تيفيك عالمي ستار تيفي حرونتي سجودة كلية عاصمة جمهورية الصومالي لان هرقيسة. برنامج كنا على واحد لسه عدسياني وصبير محمد شيخ أبو بكر تطبعات كني برنامج كينا درين كداليرادنا قضب كاين استولتا أجدونه أو أي نديرة صار دونه وحاول نقدونه قاب فكرك qofka bilaadanka ee dhalinyarada ah iyo saameynta uu noloshiisa ama nolosheeda ku leeyahay siday tahay fikirkaaga aad naftaada ka qabta deegaanka kugu xeeran ma u haysataa mid aanad la falgali karin maxaa keena fikradaha taban ee aad nolosha iyo awoodda rabaaniga ee aad leedahay aad ka aaminto fikirku hadmuu abuurma wadar bulsheedka iyo fikirkoodu saameyn inteen leeg ayuu ku leeyahay nolosha guud ahaan haddaad fikirto miyaad waalanaysaa mise waad ku ladnaanaysaa oo isbedel togan oo wanaagsan ayaad nolosha ka qaadanaysaa su'aalahaasi iyo su'aalo kale oo malaha aan filayo qaar badan oo idin ka mid iyo aniga laftaydaba uu madmadow kaga jiro waxa inala wadaagi doono oo si cilmiyeysan ku eegi doona inagoo diiradana saari doona aragtida iyo indhaha bulshadeena waxa ku arkaan iyo aqoonta oo aynu isfalgelinay. waa Dr. Sacad Muuse Cumar oo ku magac dheer ambassador-ka nabadda. waa arday ka mid ah ardayda wax ka baratay dalka dibadiisa. wuxuu shahaadada koowaad ku qaatay cilmiga psychology-ga amaba kasmanafeeda. shahaadadiisa labaad ee masterate-kana waxa uu ku qaatay isla cilmigaasi oo uu sii qaatay medical psychology. Dr. Sacad waa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarta Somaliland ee aadka u firfircoon. barnaamijka ayaan ku soo dhaweyn doonaa Sacad marka hore aad baan ku soo dhaweynayaa ku soo dhawo barnaamijka dhalinyarada ee TV-ga caalamiga ee Star TV. aad baan kaaga mahadcelinaya inaad barnaamijka marti noogu noqoto aad nala wadaagto waqtigaaga. adamada walaalo waan dhawahay ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka dhalinyarada ee uu baahiyo TV-ga Star. waad mahadsan tahay. waxaan filayaa malaha intii hordhacay aan ka sheegay ayaa inaga filan haddii aad wax ku dari lahayd ama aan wax ku dhimay oo wax ku dari lahayd ama aan wax ku daro aad ka jiri lahayd ma jirtaa? aad baa mahadsan tahay. barnaamijka ayaynu hore u gali doonaa. ugu horeyn bal waxaan jeclaan lahaa fikirka iyo sida uu sameysmo inaad nala wadaagto iyo saameynta uu ku leeyahay qofka bilaadanka qaab fikirkiisu. run ahaantii waa mowduuc aad u muhiim ah. waa mawaadiicda nololeed mawaadiicda ugu qaalisan baan filayaa. waa mowduuc ku munaasiba dhalinyarta in lagu wacyigeliyo lagala hadlo si guuda iyo si gaaraba. fikirku waxa uu ka mid yahay shaqooyinka ugu muhiimsan ee maskaxda bini aadamku ay qabato ama shaqooyinka sare kuwa lagu tilmaamo. run ahaantii fikirku saameyn kaliya tamaahe waa sameeyaha nolosha ayaynu oran karnaa. wax kasta oo banaanka hadda nolosheena ka taagan ama aynu banaanka ka arkayno runtii intaanu banaanka iman gudaheena ayaa uu ka sameysmay ama halka aynu gudaheena ula jeednaa waa fikirkeena waxaynu aaminsanahay waxa aqligeena ku dhex wareegaya fikirkaasi qaabka uu u dhasho. run ahaantii shaqooyinka aynu qabano oo dhan haddii aynu u fiirsano fikir basal u ah. si aynu go'aan u qaadano waxaynu u baahannahay fikir. mushkiladiina hor taagan si aynu u xalino waxaynu u baahannahay fikir. haddii aynu rabno inaynu xukun ridno waxaynu u baahannahay fikir. horumarka aynu arkayno ee dunida maanta ka jira ee aynu ku faanayno ama aqliga bini aadamku uu ku amaanan yahay dhammaantood waxa laga soo minguuriyay ama laga soo saaray salna u ah waa fikir. haddii aanu fikirkaasi jirin horumarkani ma yimaadeen nolosha caqabadihii ka horgudbanaa ee lagama takhalusi kareen. xaqiiqatan fikirku waa salka nolosha. haddii uu samaado oo uu wanaagsanaado saameyn fiican ayaa waxa uu ku yeelanayaa noloshii iyo xayaatadeennii iyo tayadeedii. haddii uu caqligaasi xumaado ama fikradaha ku jira ay xumaadaan ama si xun loo adeegsado saameynteeda waxa laga arkayaa iyadana nolosha
noloshaasi tayadeedii baa uu hoos u dhigayaa maadaama uu fikirkii xumaaday haddii aanu hakadba gelin oo noloshii iyada aanu joojinba wax kastoo aynu u baahannahay halka ugu horeysa ee laga bedeli karayo ama barbilowga asaasiga ah waa nolosha haddii aynu rabno dhaqankeena inaynu wax ka bedelno waa inaynu fikirkeena bedelno haddii aynu u baahanay nolosheena iyo dhacdooyinkeena inaynu wax ka bedelno waa inaynu fikirkeena wax ka bedelno haddii aynu rabno nidaamkeena dawladnimo inaynu wax ka bedelno waa inaynu fikirkeena aynu wax ka bedelno dhammaan nolosha aynu arkayno ta dhaqaale ta bulsho ta diimeed dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan waa fikir waa halka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala fikirka ama caqligu waa halka uu mas-uuliyadda dadka ka saaray inaga aragnay oo shuruudaha ee loo dhigayo cibaado kasta oo qofku uu samaynayo waxa kow ka ah inuu caqligiisa uu shaqaynayo waayo qof aan caqligiisu shaqaynayn ma fikiri karo sida awgeed kumaba jira dadka lala hadlayo inaga aragno quraanka mar walba waxa lala hadlaa war miyadan caqli lahayn miyadan fikirin miyadan wax isweydiinin waayo diinta islaamka ama ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu hadal iyo khitaab uu inoo soo jeedinayo barta uu inagala hadlayo ee hadalkaasi uu ku beegan yahay waa caqliga qofka waa maskaxdiisii waa fikirkii waa caqliga wixii ku jiray in laga shaqaysiiyo in la rogrogo inuu go'aan uu ka soo saaro inuu xal uu ka gaadho run ahaantii halka ay ku beegan tahay waa taas waxa ugu baahida badan ee maanta aynu u baahannahay ee bulshadeena ay u baahan tahay si gaar ah dhalinyarteena ay ugu baahan tahay waa in fikir wanaagsan aynu dhisno waa in aynu fikirkeena aynu barano waa awood inagu jira ee sidii si wanaagsan aynu ugu isticmaali lahayn oo horumarka inagu saacidi lahaa wax qabad uu inagu saacidi lahaa aanu u noqon fikirkaasi fikir mashaakil abuura ama xayatadeena carqalad geliya ama balaayooyin kale inagu abaabula run ahaantii waxaynu oran karnaa caqligu waa shay dhexdhexaad ah ama waa agabkaasi wixii lagu shubo iyo qaabkii loo isticmaalo ayaa runtii natiijadiisu ay noqotaa isagu iskii uma xuma iskiina uma wanaagsana samaha iyo wanaaga waxa uu ka sidanaya sidii loo adeegsaday iyo wixii la geliyay waxa uu yihiin waa midi laba af leh si horumarna waynu adeegsan karnaa si xun baynu adeegsan karnaa waa sida aqoonta oo kale aqoontu waa shay caqligeena gala oo iyada lafteedu waa midhe caqligeeni ka soo baxay aqoonteena waxaynu isticmaali karnaa adduunyada inaynu ka camirno xayaato inaynu ku samayno nabad ku abuurano horumar ku samayno sidoo kale inaynu isku burburino isku baabiino isugu awood sheegano isku khiyaamayno caqliga oo ilaahayna siiyay waynu samayn karnaa marka caqligu ma xuma in la fikiraana ma xuma laakiin waxa laga fikirayo iyo qaabka loo fikirayo iyo qaabka loo adeegsanayo run ahaantii halka uu ku jihaysan yahay waa taxadidaysa tayadii ee fikirku uu lahaa iyo macnihii uu lahaa fikirka fiicanna waa ka horumar inoo soo kordhinaya waa ka xayaatadeena wanaajinaya waa ka nolosha qurxinaya waa ka nabadda taageeraya waa ka wada noolaanshiyaha xoogeynaya ee bulshada jacaylkeeda iyo walaaltinimadeeda kor u qaadaya fikir kasta oo xunna waxa aynu ku tilmaami karnaa wax kasta oo xayaatadeena khalkhal gelinaya dib inoo dhigaya nolosheena maxaan ku idhaahdaa baabiinaya nacayb matalan ku baaqaya colaad matalan inagu abaabulaya dhammaan fikradaasi waa fikirro xun baynu odhan karnaa oo inaynu ka tagna ay tahay kuwana waa kuwa wanaagsan oo inaynu doorano oo aynu caqligeena iyo garashadeena iyo garaadkeena aynu kuwa u jeedino ee ay mudan yihiin waa tahay aad baa mahadsan tahay si qurux badan baad u dhigtay caqligu sidiisa uma amaana oo waa jirkun buu ka mid yahay laakiin hadba sida loo adeegsado sida wanaagsan weliba loogu adeegsado ayuu ku ammaanan yahay barnaamijkaynu joogna waa barnaamijkii dareenka dhalinyarada oo mawduucaynuna aad buu u ballaadhaya mawduuca ciwaankiisu qaab fikirka qofka iyo saameynta uu nolosha ku leeyahay weliba markuu qofku qof dhalinyaro yahay bal waxaan jeclaan lahaa in aynu si focuska ama diiradda saarno bal dhalinyaro badan oo Somaliland ama Soomaalida kale oo barnaamijkan daawanaysa dhalinyaro badan baa iska aaminta fikir naftooda ah oo in aanay waxba qaban karin in aanay Afrika joogaan oo waxba baran karin in aanay dunida horumartay la tartami karin iyaga oo marmarsiyo oo aan saa u sii buurnayn tibaaxaya maxaad is leedahay waa lagaga dhaqdhaqi karaa dhalinyaradaasi inay guushu ku xidhan tahay hab fikirkaaga iyo sida aad nolosha uga faa'iideysato waa su'aal aad u qurux badan caqligeenu ama qaab fikirkeenu waxa uu saameeyaa sawirka qofka uu iska haysto uu naftiisa uu ka haysto cidda uu yahay haybta uu leeyahay awoodiisu halka ay gaarsiisan tahay waxa uu qaban karo iyo waxa aanu qaban karin qofka la rabo inuu ahaado caqligeenu waa xataa ka keena weeye maxaa saxa maxaa khaldan maxaa wanaagsan maxaan ii wanaagsanayn maxaa ay tahay in la sameeyo maxay tahay in laga fogaado dhammaantood waa farsamooyin uu caqligu uu sameeyo oo uu isagu soo saaro sawirka qofku uu iska haysto run ahaantii
caqliga qaababka uu u shaqeeyo waxa kamid ah heerar buu u shaqeeyaa caqligu heerarkeenaasi heer la yiraahdo subconscious baa jira ama waa caqliga kiisa hooseeya waxa ku kaydsan khibradihii iyo waaya aragnimadii aynu ilaa markii aynu dhalanay iyo barbaarteennii aynu soo haysanay ee aynu soo wadnay ilaa iyo in hadda oo aynu taaganahayna ay ku socoto marka macluumaad kasta ama information kasta iyo xog kasta oo inagu soo noqnoqota marar badan aynu aragno isla markaa dareen wadata kaydka maskaxda qofka ayaa ay ku xarootaa xusuustaasi qofka maskaxdiisa gashay mar walba waa loo yeedhaa way soo noqnoqotaa dib baa loola hadlaa deetana waxay noqotaa mid noloshiisii qofka ka soo baxda marka caqliga dabeecadaha uu leeyahay ama dhaqanadiisa waxa kamid ah caqligaasi aynu sheegayno wax saxan iyo wax khaldan ma kala yaqaano ma kala saaro ama inuu adiga kula murmo oo qofkii programinayay male oo ku yiraahdo inuu fikirka noocaasi waa fikir qaldan ama adigu qofka noocaasi aad iska rumaysan tahay ma tihid isagu wax kasta oo loo dhiibo waa uu qaataa sidii uu qaatay baan uga jawaab celiya mesela tusaale ahaan hadda inagoo halkan fadhina hadii wax cabsila lagaaga sheekeeyo مثلا libaax dad eriyaday adiguna aad libaaxaasi inaad ka cabsato aad bilowdo waxa sida caadaduba ay tahay cabsidaasi jirkaaga way bedelaysaa waxa laga yaabaa inaad gariirto waxa laga yaabaa in cunuhu ku qalalo waxa laga yaabaa garaaci wadnahaagu inuu siyaado waxa laga yaabaa temperature-kii jirkaagu inuu kaco xaqiiqda libaax ku dul taagan hadda ma jiro laakiin waxa keenaya inaad libaaxaasi aad ka cabsi qabto wax xusuusta maskaxdaada ku kaydsan sababta aqligii ma oranayo war waxani waa sheeke ma aha libaaxada ku hortaagane in caadi iska dhig laakiin isagu dareenkii iyo fikradii maskaxda la soo galiyay ayaa uu jirkeenu ka jawaab celiya sida awgeed maanta dhalinyarta ama waxa ay iska aaminsan yihiin ama dadka Afrika ku nool run ahaantii waxaynu oran karnaa marka laga yimaado waa qayb iyo qadar Afrika sida ay tahay waa caqliga dadka jooga sida uu yahay Europe iyo Mareykan sida uu yahay waa dadka jooga caqligoogu sida uu yahay waayo noloshaada hadii aad fiiriso waxa aad aragtaa waxa gudahaaga ku jira waayo gudahaaga waxa ku jira ayaa banaanku uu soo celiya banaankan aynu joognaa waa muraayad waa iftiiminaysa ama soo saaraysa ama soo celinaysa wixii gudaha ku jiray hadii aad aaminsan tahay inaad qof doqona tahay qaab doqonnimo laad u dhaqmaysaa hadii aad aaminsan tahay inaad tahay qof fariida oo maskax badan sidii qof fariida oo farsamo badan ba aad u dhaqmaysaa qaab dhaqankaagan waxa dhaqaajiya waa caqligaaga wixii dhaqaajinayay maadadii ku jirtayna waa nooca fikirku yahay haduu yahay fikirku saacidaya ama ku dhiiri gelinaya ama kalsooni abuuraya ama nabad ama jacayl ku dhisan ama horumar ku dhisan ficilka ku jango amba inoo soo baxaya qofka ay qalbigiisa ku jirto kalsooni darri dhaqankiisuna kalsooni kama muuqan karto qofka fikirkiisa uu ku jiro cabsi dhaqankiisu dhaqan cabsi ku dhisan baa uu noqonaya qofka ay qalbigiisa uu ku jiro ama aqligiisa uu ku jiro jacayl qaabka uu dhaqmaya iyo noloshiisa waxa uu ku wareegaya wuxuu noqonaya jacayl yani hadii uu ku jiro aqligaaga nacaybkii baa dareys marka banaanka waxa inooga soo baxaya iyo dhamaan waxa aynu la kulmayno iyo nolosheenu sida ay noqonayso sida fikirkeenu yahay baa xadidaya sida daraadeed ma garan karo hadii uu caqligu ka uu yahay garabkeena ku jira aan marna inaga hor imanaynin sababaha ay dhalinyarta qaar u qaadan karaan inay gudoontaan fikradda inuu qof matalan liita uu yahay qof aan matalan wax qabsan karin matalan in uu yahay maxaan ku iraahdaa qof ay tahay mar walba inuu cid kale isagu u daba taagnaado waxaan aaminsanahay nolol abuurid waxay noogu horeysaa waa markay aynu fikirkeena abuurno fikirkaasina uu noqdo mid danteena ka shaqeynaya wanaageennana maxaan ku iraahdaayay xoojinaya oo taageeraya sida daraadeed waa inuu u baahanahay dhalinyarta inaynu ku dhiiri gelino in ay yihiin awoodaha ay haystaan dadkaasi kuwa la siman inaynu leenahay bini aadan ahaan iyo abuur ahaan iyo qof ahaan waa aynu la simanahay waxay sameeyay qof kasta oo bini aadana ama bini aadan meel jooga qof kalena waa uu sameyn kara kaliya halka la isku dhaafay waa caqligaasi iyo maxaan ku dhahay sidii looga faa'iideysan lahaa iyo wixii la gelin lahaa iyo qaabkii loo tababari lahaa iyo sidii loo leylin lahaa loo jihayn lahaa noociisii iyo tayada fikirka ku jirtana ee loo dooran lahaa waa halka ay sirtu ku jirta waa fikirka horumarka aynu arkayno oo dhan halka laga keenay waa halka ka mid la midana adigu fikirkaaga waad gelin kartaa oo natiijada ay dadkaasi heleen mid la midana waad heli kartaa waa arin doorashadaada ku xidhan waa arin dooqaaga ku xidhan waa arin aan cid kale runtii aanay ku qeexi karin ma garan karo qof waxa uu ogolaan karo in lagu yiraahdo inuu dadka ka liita in loo sheego oo uu gudoonto in aad ogolaato in lagu yiraahdo qofka dadka ka caqli yar baa tahay ama qof aan aqoon baran karin baa tahay qofka kaliya ee go'aan ka qaadan kara xukunka isa siin kara
qofka uu yahay sheegi kara waa adiga ha ogolaanin inay dadku ku qeexaan ama ummado kale ay ku qeexaan adigu naftaada qeex qofka aad tahay adigu samee sida aad u samaysana fikirkaaga samee waayo qofka aad tahay fikirkaaga ayaa uu ka dhashay oo uu ka yimi isagana uu salka ku haya sirtu halka ay ku jirto aynu dhaqankeena ka bedeli karno aqoonteena aynu ka bedeli karno nolosheena siyaasadeena dhaqaalaheena dhamaantii waa aqliga waa laga yaabaa inay waqti qaadato waa laga yaabaa inay u baahan tahay dadaal fara badan laakiin natiijadiisu waa mid hubaala wax fiican iyo horumar joogto ana xaqiiqdii ina gaarsiin karta waa tahay laakiin dhalinyaro badan oo imika barnaamijkeena daawanaysa dareenka dhalinyarada waxay isweydiinayaan oo meelo badan oo wax badan oo ay dareemayaan aad xantaysay oo aad taabsatay oo ka hadashay qaabkee qofku afkaarta togan ee aan wanaagsanayn ee uu iska aamino ama bay'adda ama deegaanka uu ku nool yahay ka aamino nidaamkiisa dawliga ka aamino naftiisa iyo waxay qaban karto ka aamino sidee u doorin karaa u bedeli karaa oo qaar togan oo bulshadiisa la falgala oo wax wanaagsan oo isaga iyo jiilasha dambe ee mustaqbalka ay u aayaan uu u dhalin karaa ayay kula tahay walow aynu su'aalo dooraana xagga dambe dib u dhigan doono xalku wuxuu kula muuqdo iyo dhalinyarada waxaad ku baraarujinayso iyo qaabkay tahay qofku inuu fakiro walow aynaan inagu dadka muqaacad ku qoodinayn oo aynaan xaggan tilmaamooyin uga yeedhinayn laakiin haddana faham guud oo la isla garanaya jirta markaynu nahay ummad muslima oo aynu doonayno inaynu muraayado islaamiya wax ku eegno oo miir qaba waliba waa su'aal aad u fiican caqligeena sidee baynu u bedeli karnaa ama fikirkeena sidee baynu u doorin karnaa haddii aynu aragnay mid ku jiray inaanu ina anfacaynin ama aanu ahayn kii munaasibka run ahaantii fikirkan kumaynaan dhalan wuu samaysmay qaab baa fikraduhu ay u samaysmaan maskaxdeennana ay u galaan ilmuhu marka uu dhasho marka laga yimaado xogta iyo informationka qofka DNA-giisa ku jiray ee uu la dhashay ee ku programsanayd waxa uu bilaabaa ilmuhu labadiisa waalid inuu fikradihii ugu horeeyay ee nolosha uu kala kulmo labada waalid iyaga qofkii barbaarinaya iyaga abuuraya caqligiisu waxa aynu ku sawiri karnaa sidii sabuurad maran oo aanay waxba ku qornayn ilmaha inuu yahay sabuuradaasi qofka ugu horeeya ee wax ku qoris ku bilaabaya waa labadii waalid labada waalid iyaga qofka u kala sheegaya wixii u wanaagsanaa iyo wixii u xumaa iyaga ayaa u kala sheegaya maxaa saxa maxaa khalada iyaga ayaa u kala sheegaya sida ay tahay inuu u dhaqmo iyo sida aanay ahayn inaanu u dhaqmin programkaasi caqliga waa macluumaadkii ugu horeeyay ee bilowga ah ee soo galay maadaama oo caqliga aynu nidhi waa la programin karaa barnaamij baa lagu shubi karaa waa la gelin karaa sidoo kale waa la bedeli karaa waa la masixi karaa waa laga guurin karaa kuwa cusubna waa lagu beeri karaa caqliga run ahaantii qaabab fara badan ayaa wax looga bedelaa wax ka bedelkiisa waxa ugu horeeya garashada iyo ogaalka ah inaynu helno fikradaheena nooca ay yihiin inaynu qiimeyn ku samayno marka aad leedahay waxbaynu bedelaynaa waa wixii la bedelay inaynu ogaano aynu qiimayno aynu furfurno aynu falanqayno kadib aynu ku qanacno waxani waa wax aan ina anfacaynin ama waa wax aynaan doonaynin ama waa wax aan tayada nolosheena kor u qaadaynin ama waa waxaan fikrado aan iga dhigaynin qofkii aan rabay waa fikrado matalan aan samaynayn dalkii aynu rabnay waa fikrado matalan aan kobcinaynin dadkii aynu doonaynay aan soo saaraynin kadib marka uu wacyigaasi uu yimaado garashadaasi ay timaado uu ka garaabo qofka fikirkan inaanu ahayn fikir farsamo fiican keeni kara markaasuu qofku uu qaadan karaa marka bilowga waxaynu odhan karnaa waa inuu qofku ogolaado ama uu yaqiinsado uu ogaado in uu yahay fikirkani mid xun waa sidii qof xanuunsanaya oo kale haddii qofka aynaan ku qancin karin ama aynaan u sheegi karin waad xanuunsanaysaa ee dhakhtar raadso suuragal maaha qofkaasi inuu dawo qaato suuragal maaha inuu doctor u tago suuragal maaha inuu dhakhtar tago bilowga ugu horeeya waa garashada mushkiladda ina haysata waa garashada nooca fikirkeenu uu yahay fikradaha maanta nolosheena ka jira in la qiimeeyay u baahan yihiin ama qofku si shakhsiya uu u qiimeeyo kadib marka uu qiimeeyo ee uu xadido ayaa uu garan karaa maxaa uu u baahan yahay run ahaantii su-aasha ugu muhiimsan ee aan odhan karo qof kasta oo dhalinyaro ina daawanaya caawa inuu isweydiiyo quruxda badan waxa ay tahay
nolosha hadda aad ku nooshahay ee aad ku jirto may tahay nolol aad raalli ka tahay may tahay nolol aad ku faraxsan tahay may tahay noloshii aad doonaysay haddii jawaabta usoo baxaysa qofka ay tahay ha caqligiisa fikradaha ku jira waa fikrado fiican in uu xoojiyo oo uu maxaan ku idhaahdaa uu joogteeyo ayaa kaliya uu u baahan yahay haddii jawaabta soo baxaysa ay tahay maya oo nolosha raalli kuma ihi oo qaabkay u socoto raalli kuma ihi oo sida ay wax u dhacayaan raalli kama ihi kuma qanacsanitaan doonayay maaha mushkiladu maaha inuu loolan la galo dhacdooyinka ee mushkiladu waa inuu caqligiisa ay ku jirto waayo dhacdooyinka nolosha ka dhacaya iyo sida uu u dhaqmaya waxa ay ka yimaadeen halka kadib marka uu taa uu arko qofku waxa uu qeexi karaa oo uu qori karaa qofka uu rabo inuu noqdo cidda uu doonayo inuu noqdo waxa uu doonayo inuu xaqiijiyo kadib marka uu arko isagu uu isfahmo uu isqeexo uu isfasiro ayaa waxa uu ka fikiri karaa fikirka qofka igu saacidi karaa waa maxay aaminaada matalan xoojinaysa qofkaasi waa maxay waxa aan rabo iyo hanka iyo himilada hiigsigaygu uu ku maqan yahay qaabkii aan u xaqiijin lahaa waa maxay qaabkii ta ugu horeysa ee lagaaga baahan yahay inaad la timaado waa fikirkii ku munaasibka ahaa tusaale ahaan haddii qof uu rabo matalan inuu aqoon iyo cilmi uu barto laakiin matalan aanu lahayn sabir uu wax ku akhriyo sabir uu macallin matalan yara dhibay uu dul qaato haddii aanu lahayn inuu dadaal uu u bixiyo sidii uu aqoon u raadsan lahaa uu yahay qof matalan caajis badan qof aan wax akhriska jeclayn qof aan inuu dadka aqoonta leh garab fadhiisto ama kulamadooda uu xaadiro ama uu maxaan ku idhaahdaa waxbarasho uu u baxo haddana rabitaankaasi run ahaantii ma aha mid xaqiiqoobaya mid dhaboobi kara sababtoo ah fikirkii halkaa waxa aan si kooban haddaan u idhaahdo waa fikir iyo ficil iyo qofka maxaan ku idhaahdaa natiijadii noloshiisa saddexdaasi si ay isugu xigaan ayay isku dhalaan qofka waxa ku soo dhacda waa fikradaasi waxa ay dhalisaa dareen la mida fikradii macnaha fikraddu haddii ay tahay cabsi dareen cabsiyeed baa qofka ku dhasha qaab dhaqankiisu waxa uu noqdaa qaab dhaqan cabsi ka jawaab celinaya macnaha haddii aragto bahalkaasi fikirka aad ka haysataa waxa uu yahay inuu yahay bahal khatar ah khatartii dareen cabsiyeed bay keenaysaa dareenkii cabsiyeed wuxuu keenayaa inaad ka cararto sidaa daraadeed qaab dhaqankeena oo dhan waxa uu ka imanayaa dareenkeenuna waxa uu ka imanayaa fikirkii qaab dhaqankan ama maxaan ku idhaahdaa nolosha natiijada hadda aad haysaa haddii ay ku cajabin weyday dareenkaaga bedel kadibna fikirkaaga bedel dadka qaar ba waxay yiraahdeen matalan caadooyin ay leeyihiin ama dhaqamo ay leeyihiin ba waxay ku adkaataa inay iska jiraan caado la bedeli karaa ma jiro qaab dhaqan la bedeli karaa ma jiro haddii aanay maxaan ku idhaahdaa qofku aanu bedelin fikirkii ay ka soo baxaysay ama halka ay salka ku hayso waa tahay aragtidu markaad doonayso inaad wax bedesho waa inay meesha ka soo burqanayso oo adiga ah ruuxdaada oo inaad qaabkaaga aad wax ka bedesho oo aad fikrado cusub ama ficil cusub oo wax ka bedela aragtidaada iyo qaab nololeedkaaga hore inaad la timaado ayaan u fahmay aad baad u mahadsan tahay Dr. Sacad Muuse Cumar oo barnaamijka caawa iyo toddobaadkan marti noogu ah Dr. bal waxaan jeclaan lahaa dad badan baa ku dooday in dunida koowaad isku magacaabaan dunida horumartay in ay Afrika iyo wadamada dunida saddexaad ee Latin America iyo Asia qaybo kamid ah iyo Afrikaba sababaha dib u dhigay ay yihiin maxaan ku raahdaa fadhiidnimo dhinaca fikirka ah waliba dadka hogaanka talada dadka u haya misleedahay saameynta fikir ee dhalinyarada ee ummad kasta ay leedahay waxa uu ka shidaal qaataa hogaanka waxa jira adduunyada ilaahay waxyaalo uu dhigayo sunnayaa la yiraahdo waa sunan uu koonku ku dhisan yahay waa qawaaniin waa xeerarka xakameeya dhacdooyinka dhammaan dunidan aynu ku noolnahay xeerarkaasi waa xeerar aan isbedelin waa xeerar aan doorsoomin waa xeerar aan kala xigtaysi lahayn matalan in wax kasta oo kor loo tuuro uu dhulku soo jiito waa qaanuun uu leeyahay dhulku qaanuunkaasi cid uu kala saaraya ma jiro cid uu kala yaqaanaana ma jiro matalan cadceedu maanta haddii ay soo baxdo dadka oo dhan way u soo baxday ma kala saaraysa iyadu subaxii waa ay u soo baxaysaa laakiin cadceedaas sidii looga faa'iideysanayay qaabkii loola macaamilayay sidaad cadceedan aad u arkayso xataa waxa aad ka aaminayso cadceeda run ahaantii waa waxyaalo iyagu bulshadu ay samaystaan
horumarka Yurub ka jira ma aha wax iska yimi ma aha qayb ma aha waxay hadiyad u heleen waa natiijo ka timid dadaal iyo shaqo iyo aqli iyo aqoon la bartay oo lagu xiiqay hadii aad taariikhda dunidaasi aad aragto ama aad u fiirsato noloshii ay soo mareen waxa aad arkaysaa waxa ay maanta haystaan inay mudan yihiin inaanay ahayn wax iska dhacay ha noqoto mararka qaar waxyaalo khaladaadi ha soo galaan laakiin xadaaradaasi aqoon bay ku dhisantay cilmi bay ku dhisantay dadaal bay ku dhisantay taasi waa sunno nololeed sunnahaasi dadku way u simeeyeen hadii Afrika ay u kacdo dariiqa horumarka way horumaraysaa Latin America hadii ay qaado dariiqa horumarka way horumarayaan caafimaadku waxa uu leeyahay sunnayaal u yaala hadii aad maanta cunto ay bacteria ku jirto in aad cunto calool xanuun ba kugu dhacay bacteriyadani ma kala taqaano Afrikaan iyo European iyo Latin iyo dadka adiga sidan u kala yaqaan laakiin isagu shaqo ayaa waxaan uu haystaa shaqadii baana uu ku kacaya waxaan aaminsanahay sababaha horumarka keena hadii aynu qaadano inaynu ula simanahay hadii aynu bixino dadaalkii loo baahnaa inaad midhiisa ay helayso run ahaantii wax inaga inagu xidhan iyo rabitaankeena iyo doonisteena iyo qaab fikirkeena iyo hadba dadaalka inagu aynu bixinayno haddaad imika nagu soo biirtay daawade waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni dareenka dhalinyarada oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno qaab fikirka iyo saameynta uu ku yeesho qofka noloshiisa barnaamijka toddobaadkan waxa marti iigu ah Dr. Sacad Muuse Cumar oo ku magac dheer ambassadorka nabadda oo shahaadada labaad ee jaamacadana ku haysta cilmiga psychology-ga ama kasma nafeedka Abdulaziz Dr. Sacad si fiican baynu qodobadaas uga hadalnay imikana bal waxaynu u gali doonaa imika si guud baynu uga hadlaynay iyo saameynta fikirka iyo qofka uu ku leeyahay bal waxaynu soo daadegi doonaa saameynta iyo bal dhalinyarada Soomaaliland amba Soomaalida iyo maxaa keenay qof dhalinyaro in uu nolosha saluugo oo uu tahriibo oo uu ama yiraahdo walaalkaygi iga weynaa amba qoladii hore baxday jaamacadaha ka baxdayba shaqo ma hayaan maxaan anigu isku daalinaya wax u baranaya waa inaan iska fadhiistaa wax walba waa nasiib bay ku yimaadaan fikradahaasi maxaa keena inay qofka ku beermaan iyo aqligu ma fadhiid ma noqdaa mararka qaar ta hore hadii aan ku horeeyo rajadarrida ama himilo inaanay qofka u muuqan ama barta uu joogo qofka bini aadankii inuu ku qanco inuu ka hayaamo ka safro meel kale uu uga diga rogto waxaan oran karaa waa natiijo ka dhalatay niyad jab qofkaasi ku dhacay iyo gaab ku yimi nolosha uu sawiranayo ee uu doonayo iyo xaqiiqadu waxa ay tahay marka ay taasi timaado qaabab dhowr ah ayaa dadku ay u xaliyaan تهريبته ونوع كبحث واقعي أتكبحثانيسو يعني تهريب وفقط يعني وأرض أفعربي بيكتي من كلمته قفك وحكور دي واقعي قنعين واي واقعي عجبين واي كي نقضي كي إسقو ربي نقون واي أما أكواي runtii waana qaab bini aadanku uu uga jawaab celiyo oo xataa inaga Soomaalideennii hore dad iska xoolo dhaqata abay haayeen oo reer guuraaye oo hadba halku roobku ka da'o ayay badiya ay tagi jireen ay socodkii un baynu ilaa hadda ku jirnaayo wali dhaqanka deganaanshiyaha iyo xasilka iyo sanka la dhigo oo magaalooyin la abuuro oo xadaarada ay dhalato waa dhaqan magaalanimo dhaqanka reer miyiguna inta badan wuxuu badan yahay dhaqanka socodka ku dhisan run ahaantii fikirkaasi haddii aynu rabno inaynu ka gudubno waxa ay keenaysaa inaynu wajahno xaaladda aynu ku jirno in mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo inta ummadda talada u haysa ay eegto maxay ka cararayaan dhalinyartani maxay halkan ka waayeen halka jira deeto sawirka ay iyagu doonayaan iyo higsiga hankooga ku jira inta la eego in la isku dayo halkii ay joogeen in la soo fadhiisiyo badiya waxa laga yaabaa maanta dadka madaxda ah ama xilalka inoo haya inay canaananayaan dhalinyartii tahriibtay kuwa iyagu canaanta lahaa maaha canaanta iyaga inay naftooda u jeediyaan bay ahayd iyaga hogaanka u qabtay iyaga yiri annaga idii talinayna iyaga yiri horumar baan idii hogaaminayna iyaga yiri nolol karaama leh oo u qalanta in la noolaado ayaan dhalinyartan aanu abuurayna mustaqbal darrida iyo maxaan ku idhaahdaa niyad jabka kaga dhacay qayb ay ka yihiin mas'uuliyadda qayb ka yihiin
cidda canaanan kartaa dhalinyartaasi waa ninka isagu la midka ah ee dalkiisa aaminay wax qabad ka sameeyay wax ku bartay ku faanaya ku qanacsan isbedel ka sameeyay kaasana aaminsan aanu inay ay tahay inuu canaanto laakiin qofka madaxdii waa inuu xal la yimaado ha tahriibina maxaa dadka u haysa ha tahriibina marka aad leedahay dalkeena nimca fadhida faraha u saar dhalinyartan socota nimcadan fadhida iyaga u baahan inay arkaan marka waxaan filayaa mararka qaar ee qofka madaxda ama dadka xilka inoo haya in nolosha isagu ku jira laga yaabo inuu dadka uu ku qiimeynayo maanta wadciga dalkeena ka jira waxa laga yaabaa dhalinyartaasi marar badan markaad u fiirsato aan taageersaneen qaabkay uga jawaab celiyeen runtii nolosha dhiban laakiin maanta qofku wax bartay jaamacad ka soo baxay kartidiisii iyo aqoontii uu lahaa aan waxba ku shaqaysanayna u baahan cidda uu yahay iyo halka uu ka soo jeedo hadii aanay ahayn dadkii fursadahan lahaa inuu iska tago dal aan cadaalad dhameystiran aanay ka jirin maxaan ku idhaahdaa nolol wanaagsan oo qofka maxaan ku idhaahdaa baahiyihiisii buuxinaysa aanay ka jirin qofka noocaasiya su'aasha dhabtii waxay tahay war maxay dadkani la tahriibaya maxaynu ka qabanay dadkii maxay eriyay ma run ahaantii ismoodsiis ma aha anisan aaminsanay tahriibtu ma aha uun dad iska yaacaya laakiin dhibaatooyin baa jira dhibaatooyinkan aynu u baahanahay inaynu xalino dhalinyarta cararaysa runtii inta wax qaban kartaa waa inta joogta oo tusiya in dalka wax laga qaban karo dalka aynu inaga oo dhibaata ay haysato melihin dalkeenu waa dal wada horumarsan waa wada wanaagsan wax walba way fiican dhibaatooyin way jiraan ragii dhibtan xalin lahaa waa inaga dhibtan yeynaan ka cararinay aynu ku dhiirano aynu wajahno aynu waaye cusub aynu abuurno sidaynu xal u keeni lahayn aynu ka shaqeyno taas ayaa aan leeyahay waana mushkilad aqligeena iyo qaabka uu xalka u arko waana qaab cabsi ah oo qofkii uu ka cabsaday waaqacan inuu wajaho ama uu wax ka bedelo ama uu la loolamo ama maxaan ku idhaahdaa uu taxaddi iyo challenge ula galo ilaa uu ku guuleysto laakiin waxaan rabnaa inaynu ka cararno waqtigana aynu soo koobsano meelo laga shaqeeyay oo dad kale ay ku daaleenna aynu ku raaxaysano taasina malaha waa way imika aad u soo afmeerantay oo Europe lafteeda waa crisis dhaqaalahaanba ay ka jira waxa tahay su'aashii kale aqligu mar ma talax gaba aqligu goormuu talax gaba aqligu talax gaba ama uu hawl gaba ama uu shaqo gaba gabitaanku waa mar uu hakad galay waxa dhici karta in uu tayadiisu hooseyso waxa dhici kara inuu xumaado waxa dhici karta inuu noqdo kii la rabay aanu noqon run ahaantii aqligu waxa uu talax gaba marka uu shaqadii loogu talagalay uu qaban waayo aqliga shaqada loogu talagalay fikirka kamida waa qayb maskaxdeena kamida oo ka shaqeysa inuu qofkii uu shaqeeyo inuu hal abuur sameeyo inuu mushkiladaha hortaagan xalliyo inuu aqoon barto in uu fikiro inuu wax soo saar sameeyo in nolosha hortaagan uu isku dayo inuu sababeeyo in uu raadiyo dhibaatooyinkan maxaa keenay sidee loo xalin karaa sidani maxay u yimaadeen shaqada noocaasi waa jimicsiga uu aqligeenu u baahan yahay waa ka uu ku kobcayo waa ka uu ku siyaadayo maskaxdeenu markasto aynu si wax xiftino waa markasto ay korodho waa markasto aynu isticmaalkeedu u bato waa markasto awoodeedu ay siyaado marka uu talax gabayo uu hawl gabayo waa marka shaqadaasi uu qaban waayo waxaad ka warantaa hadii maanta muruqyadeenu ay dhaqaaqi waayaan ama jirkeenu uu shaqeyn waayo socon waayo wax qaban waayo run ahaantii ma noqonayo jir firfircoon inuu bukoodo oo cudur uu ku dhaco waayo xubintani waxa ay lahayd shaqo loo igmaday shaqadii loogu talagalay hadii ay qaban weydana waxay u arkaysaa unugyadii halka ku jiray inay u arkaan inaan looba baahnayn sida awgeed inay xubnahani ay tarmaan inay iscusboonaysiiyaan waxa keenaysa in la cariyo in la layliyo in laga shaqaysiiyo markaas uu talax gaba aqligu run ahaantii waa marka uu shaqadiisii gabo waa marka uu midhadhali waayo waa marka uu xal keeni waayo marka uu fikiri waayo waa marka uu aqoon soo saari waayo dhammaan waxa marka aynu qabanana waa markasto aqligeena uu kobcayo oo uu xoogeysanayo natiijo fiicanna uu soo saarayo waa tahay aad u mahadsan tahay Dr. Saad Muuse Umar waxaan kaloo jeclaan lahaa bal inaan wax ka weydiiyo xiliyadan aynu nool xiliyadan dambe waxa jira dad badan oo iyagu yiraahda qofku inuu aqlaani noqdo ama qof aqliga isticmaala oo aqliga wax walba ku daya oo aan dabar lahayn waxay tahay xad ka bax bal arintaas aan jeclaan lahaa bal inaad nala wadaagto qofku inuu aqlaani noqdo ama dambiba bise aqlaaniyada qaar inaad noqoto oo wax walba ku qiyaasto aqligaaga kooban oo naqliga ambaba
waxyiga iyo sunnaha aad barbar dhigto mushkiladu waa taase laakiin mushkiladu ma aha inaad aqlaani noqoto marka la leeyahay aqlaani run ahaantii horta wax ay noqon kara ma aha oo waa qofkii aqliga isticmaalayay noolaha run ahaantii ka tanaasulay isticmaalka iyo adeegsiga aqligiisa waa qof bini aadanimadiisii ka tanaasulay waa qof qofnimadiisii ka tagay mushkilada run ahaantii waxa laga yaabaa daawadayaasha qaar inaanay aad u fahmin laakiin waa arin salka ku haysay dood diimeed oo muddo hore runtii samaysantay haddaad u fiirsato saynu horeba aynu u tilmaanay diinta islaamku inta aqlaaniyiinta abay la hadlaysaa macnaha waa inta aqliga leh waa inta aqliga isticmaalaysa waa inta garashada u saaxiibka waxaba ay diintu inagu caarinaysaa si aad u garato diintani inay xaq tahay waxaan lagu sheegayaa inuu yahay inaad adigu aqligaaga adeegsato afala yatadabbaruun afala yacqiluun afala tacqiluun afala tatafakkaruun yani dhammaantood waa wax tusinaya war maad fikirtid maad wax isweydiisid diinteenu ma aha diin wax isweydiinta ka cararaysa ama wax is-su'aalista ka cararaysa waa diin xujadeedu xoogan tahay caqligeennana si toosa ula hadlayso run ahaantii doodaasi way dheerayd dhinacyo badanna way lahayd waxaana aan filayaa salka inay ku haysay mesela haddii la yidhaahdo caqliga iyo naqliga oo ah waxyigii ina soo gaadhay ee laynoo soo guuriyey iyo caqligii inagu aynu haynay keebaa horeynaya macnaha naqligu markaynu naqli leenahay yani waa wax la soo raray naqala soo ma yani waa wax la keenay waxaa la keenayaa horta meel la keeno soo uma baahna waa inay meel jiro caqligu waa agabkii isaga mar walba halkan yaala isaga horeeya yani jiritaan ahaan baan ka wada waa ereyada la isla fahmi waayay baan islay jiritaan ahaan caqligii baa horeeya caqligu markuu halkan yimaado quraanku wuxuu la hadlayaa caqli haduu caqli la waayo yuu la hadlay quraanku oo xukunku ka dhacayba way naga aragnay oo fiqiga aad ku aragteen qofka hadii aqligiisu tago qofku inuu isagoo khamri cabsan maxaa loo diiday inuu salaad tukado macnaha qofkan aqligiisa ma joogo garashadiisa ma joogo hadii uu aqligani tago ahkaamtan oo dhan way ka dhacayaan way ma fahmi kartidba ahkaamtan adiga kuguma wajahna ahkaamtan waxay sheegaysaa in ilaah la rumeeyo rumayntu waa shaqo maskaxdu qabato hadaanay maskaxi jirin aqlina oolin meesha sidee bay u galay halkii galaysa waa in la doono waa qof aynu nidhi guri gal aynu nidhahnana gurigiina ma jiro agabkii iyo weelka shaqadani ay ka socoto ama halka ay galayso salaaduhu waa shan baa lagu shan waa tirana maskax baa la macaamisha iyo caqli inaad xiftido qaabkii ay tahay iyo wixii la oranayay waa arin caqli u baahan horta caqligu jiritaankiisu waa inuu isagu jiro oo quraanka iyo diintu dhammaantood halka ay la hadlaysa ayaaba caqligana marka horta dooda oranaysa keeba horeyn ahaan waa caqligana horeeya laakiin waxa laga yaabaa dad baa waxay u fahmeen keeba fiican inaynu leenahay ama keeba wanaagsan ama in la leeyahay caqliga ka fiican quraankii taasina ma aha arin sax ah laakiin waxa aynu leenahay iska dhaaf xataa in quraanku matalan saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam quraan buu u leeyimi reer quraysheed may arag nabi ka horeeyay lamay kulmin may arag maxaan ku idhaahdayay quraankan oo kale hore umay arag markaad u fiirsato nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo quraan akhrinayo u yimi dhammaantood horta way ka baqayeen inay la kulmaan waaye uu ka xujo weynaa uu ka hadal cuslaa qofkii waraysta ama u yimaada wuxuu arkay waxaan inaanay hadal iyo sheeko aanay ahayn wuxuu arkay maxamed inaanu nin waalan ahayn waxa uu arkay hadalka noocan ee xikmadan iyo sidan u xeesha dheer inaanu qof waalan ka soo bixi jirin deetana qofku isaga oo caqligiisa isticmaalaya ayaa waxa uu ku garanayay waxaan inuu xaq u yahay macnaha hadii aanay saxaabadii nabi maxamed ridwaanullaahi calayhim aanay ahaan lahayn dad caqli u saaxiiba nabi maxamed ma bay rumeeyeen adigu maanta caqligu yani qofku sida bilowga ah nin مثلا iska miskiina agoona magac buuran aan dadkiisa ku dhex lahayn la shiidayo la dhagaxaynayo caruurtu dabayaacayso waa nin waalan la leeyahay dadkii madaxdii intii kelmadii ka go'aysayba ay ka soo horjeedaan waxay u baahan tahay inaad caqligaaga adeegsato oo gar qaado oo aad arintan uu sheegayo nabi maxamed iyo waxa laga sheegayo garqaadku waxba isbarbar dhigaysa in wax la isbarbar dhiga oo wax la isku miisaama waa qadiyad uu caqliga qabanayo natiijada koowaad ee ku qancisay waxaan inuu xaq yahay natiijada koowaad ee ku qancisay waxaan inaanu gabay ahayn nin waalan sheekadii inaan ahayn faaliyo warkii iyo sixroole inaanu ahayn waxa ay isticmaaleen caqligu waxa uu xoojinaya oo adkeynaya mar walba diinta waxaana qofku uu hogaaminaya waxa sax
saxda ah iyo xaqiiqada runtii inuu helo loolan ka dhex dhalan kara caqliga iyo diintana anigu ma arki karo ama in la abuuro dood noocaasiya waxaan macno badan sameeyeen baan u arkaa caqliga waxa sameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay xaqiisana uu ka yimi quraankuna waa wax ilaahay xaqiisa ka yimi labadan shay iskama hor iman karaan suuragal ma aha ilaahay diin caqliga isagu uu inoo abuuray ka hor imanaysa ama burinaysa ama baadil ka dhigaysa inuu inoo sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu caqligii iyo quraanka ay noqdaan laba shay oo isku dheelitiran run ahaantii culimo badan baa ka hadlay culimadu waxa ay yiraahdeen ama natiijada ugu fiican ay tahay inay labadani ay tahay mar walba in ay iswaafaqaan in diintu caqli darri kuma dhismi karto caqliguna diin xaqa ma beenin karo oo xaqiiqo ah haddii uu labadani ay isqabad waa yimaado ama ay isku miisaanmi waayaan waa in qaabka caqligani uu u shaqeynayo waa in dib loo eego ama waxaan naqliga ah waa in la hubiyo waayo waa labaduba inay wada saxmaan suuragal ma ah haddii ay wada saxan yihiin mar walba way wada joogayaan way isdhamaystirayaan waxaan kala maarmayn ta aan filayo iyadu caqligu in uu dabar u yeesho run ahaantii waa erey aan sida loo adeegsanayo badiya aan ahayn waxaan filayaa dabarkaasi dadka qaardanahooda gaara ayaa ay u isticmaaleen waxay u isticmaalayaan in مثلا adigu ha fikirine aniga ku fikiraya anigu dabarkaagi aan noqdo qofkii ku xidhay aan noqdo de cid gar kuugu leh anigu ma garan karo oo ku oranaysa ana ku fikiraya ana wax ku baaraya anu bini aadan baan ahay maamuusan karaamaysan mas'uuliyadi sida ku saarantay u saaran sida inaad xaqiiqada ogaato ay anigana ay saarantay sad wax u baratay baan aniguna u baahanahay inaan u barto uma baahna qofku aqligiisa in wax loo yeedhiyo marka la leeyahay qofkan adu aqligaaga ha isticmaaline sidan yeel kalsooni darri qofka lagu qabo ama dhalinyarteena aynu ku qabna ayaa ay tusinaysa waxa aynu haynaa hadii uu yahay wax xaq ah hadii uu yahay wax sax ah wax gara aqligu ma beeninayo kalsooni inaynu ku qabno ayaynu u baahanahay run ahaantiina fikir kale ayaa lagaga hortaga fikirka lama caburiyo lamana dagaalamo qofkii fikir qaldan aaminsan fikir kale ayaad laakiin inaad u hanjabto ama aad adigu halkii uu ka heli lahaa ama ilaahi uu ku kobci lahaa fikirkiisu aad ka xidho runtii waa arin daciifnimo tusinaysa xujadaaduna inaanay xooganayn tilmaamaysa iyo inuu fogaansho ayuunbaa malaha ka dhalanaya oo aad ba mahadsan tahay Dr. Saad Muuse Cumar si qurux badan oo xaraga leh ayaad mawduuca noogu sharaxday aad baan kaaga mahad celinayaa daawadayaal badan oo filayo in ay midmadow kaga jiray su'aalo isweydiinayay fara badan inaad uga jawaabtay oo ay su'aalo ay ku qancaan 90% markay ugu fog tahay aad baa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayaan ku soo dhawaanay bal waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaalida ee barnaamijkan daawanaysa imika si toos ah shaashada telefishinka caalamiga Star TV oo hor fadhida bal waxaad kaga tagayso talo iyo waano iyo bal cilmigan aad baratay ee kasmanafeeda psychology-ga iyo bal saameynta uu ku yeelan karo dhalinyarada oo ay iskula falgali karaan oo waliba si wanaagsan oo togan meelo badan oo dhulka Soomaalida geeska Afrika waxa ka jira colaado dagaalaha ka jira dhalinyaro badan ayaa hub garbaha loo saaraa iyadoo oo si wax loogu sheegayo qaar kale ayaa nidaamka dawliga iyo dawladnimada iyo wadaniyada loo bahlageliya way badan tahay mashaakilka dhalinyarada haysta oo waad qaar badan waad magacawday bal gabagabadii barnaamijka waxaad kaga tagayso ayaan jeclaan lahaa inaad ku soo dhawaato iyo bal kelmadaada u dambaysa ee nala wadaagayso Dr. Saad aad baad walaal mahadsan tahay run ahaantii psychology-gu saad sheegtay waa cilmiga barta ama diraasiye ama raadiye maskaxdeena iyo sida u shaqeyso maskaxdeenu shaqooyinka ugu muhiimsan ee qabatana fikirka ayaa kamid ah aynu soo sheegnay run ahaantii qofku inuu naftiisa barto ogaado isfahmo waa halka ugu horeysa ee adduunka ka fahmi karo nolosha ma fahmi kartid adduunka ma fahmi kartid haddaanad adigu isfahmin ama adigu aanad isbaran run ahaantii dhalinyarteena ama nolosha maanta aynu ku jirno waxa ugu muhiimsan ee aynu u baahanay waa fikir marka aan leeyahay dadka qaar waxa ay u haystaan inaan ka hadlayo wax macnaha aan cilmi ahayn wax aan matalan aqoon ahayn matalan wax aan xadaarada nolosha iyo cilmiga iyo aqoonta wax alla waxa adduunka yaala inuu la dhacsanahay waa fikir
fikirkii ayaa waxa uu fikir cilmiyeed baa jira fikirka cilmiyeysan waa fikir nidaamsan habaysan manhajaysan xeerar leh waxa jira fikir wax faaqida waxa jira fikir hal abuura dhammaantoodna waa la bartaa dadkeena waxaynu u baahanay inay fikirka bartaan fikir oo dhan inay bartaan ma aha fikirka aynu u baahanay maanta faqri baa inahaya waxaynu u baahanay fikir qaninimo iyo hanti sidii loo abuuri lahaa inuu dadkeena barno nidaam xumi iyo dawlad xumi baa ina haysata fikir dawladeed baynu u baahanay nidaam dawladeed inay dadkeena bartaan baynu u baahanay in ay bartaan xorriyad iyo kala dambeyn iyo nidaam iyo xuquuq iyo cadaalad baa aynu u baahanay fikirkeedii inaynu abuurnayno u baahanay maanta mashaakilka ina haysta waxa kamid ah sida aad sheegayso dhalinyarteeni inay u noqdeen xaabo waxaanay waxba uga danahayn waxa laga yaabaa noloshoodu oo tii ugu qaalisanayda dadkii ay ummaddu ay ku tiirsanayda inaanay maanta macnaba inala lahayn waxa laga yaabaa inay maanta inta qarxaysa ay dhalinyar u badan tahay inta colaadaha iyo dagaalada sokeeye ee agabka looga dhigtay ee lagu hurinaya inay dhalinyar ay tahay run ahaantii dhammaantood dadkaasi fikir rakhiisa ayaa laga iibiyey waxaan weynin ayaa looga dhigay wax weyn xayndaab ay leey cidi samaysatay oo danahooda gaara u shaqeynaya ayaa waxa looga dhigay qadiyadiisa inay tahay qofka dhalinyarta ma aha baan leeyahay taasi qadiyadaadii waxay wax ka khuseeyaan ma aha qadiyadaadu waa horumar qadiyadaadu waa nolol qadiyadaadu waa caafimaad qadiyadaadu waa waxbarasho qadiyadaadu waa xorriyad iyo xuquuq cadaalad iyo sinaan nolol mudan inaad noolaato mustaqbal inaad abuurato dagaal beeleed kuma jirto urur kale oo maxaan ku idhahdaa kugu guuraya dadka kuraasta raba ama xilalka raba ama qadiyada siyaasadeed ugu loolamaya naftaada badiyaa hoteelay degan yihiin badiyaa meelo lagu raaxaysanaya joogan badiyaa ubadkoogu jaamacada banaanka abay dhigan ha noqonin qof doqona ha noqonin mid cid u raran adigu noqo nolosha aad doonayso qofkii noolaada fikirka uu doonaya isagu noolaada fikirka maanta aynu ugu baahi badannahay waa in dhalinyarteena lagu abuuro inay bartaan naftooda sideebay nabad ugula noolaan lahaayeen bulshadoodana nabad ugula noolaan lahaayeen falcelintooduna mid nabdoon ay u noqon lahayd qaabka uu u fikirayaana mid nabdoon uu noqon lahaa talabaad ugu muhiimsan ee aynu u baahannahay bulshadeeni waa fikir jacayl iyo walaaltinimo iyo wada noolaansho inaynu barno bulsho runtii aan isku naxariisanayn aan iskacan qabanayn aan isa saacidaynin aan isjeclayn ma noqon karto bulsho isdhamaystiraysa iskacan qabsan karta horumarna wada abuuri karta runtii fariintayda ugu muhiimsan ee aan gaadhsiin lahaa dhalinyarta waxa ay tahay inay noloshooda dib u eegaan caqligoodana ay kaashadaan caadifada lagu abuuray caqliga waxa laga yaabaa marar badan inuu nolosha noocan ku jira ama dagaalo beena matalan ama nacay beena cid loogu abuuray hadii aad ku tiraahdo maxaad u dagaalamaysaa ama maxaa aad u diraraysaa san ana doonaya inuu ku yiraahdo laga yaabo badi qofka caadifadiisi baa la iibsaday heeso iyo gabayo iyo gubaabo beena ayaa loo akhriyay sidana inay geesinimo ku jirta ayaa loo sheegay hadii uu dib u istaago qalbigiisa uu dhageysto caqligiisa uu dib ugu noqon lahaa waxa uu dareemi lahaa waxani waa wax uu ku barbaaray ama uu arkay laakiin inuu u baahan yahay dib u eegis iyo dib isku muraajacayn iyo sida aynu sheegnay inuu fikirkiisii uu dib u bedelo noloshoodana ay xor u ahaadaan aanay noqon nolol cid raacsan ama qof daba fadhida ama maxaan ku idhaahdaa hogaankeeda ay cid kale u hayso qofku keligii baa ilaahay abuuray keliga baa aad qabri galaysaa keliga baa lagu soo saaraya keliga baa lagu xisaabinaya intaas oo dhan cid ka xigsan mayso dhimashadaada bedelkeeda qof kale dhiman maayo ha ogolaanin marka qofka dhalinyarta oo in uu qof kale noolaado noloshaada bedelkeeda مسؤوليتها هالنقطة أديكونا هجان كيجا أهو. أدي أدو ما صنتهاي دكتور سعد موسى عمر أدوان كاجم هاد الليلة برامج كدلني راد أن نقوم مرتين نقطة. أدو ما صنتهاي. توداش قيمها قايها قدرين تيحش مدة ونجا مدنو إذا كنا أدو ما سنتين سدا وقت جينا قالي قاعد وصي سنة برامج كانوا دعوتين وفي لا يدلني راد بدنو صوماليات وبرامج كدعونا يسا إن أي واحد بدن كفاية fikrado wanaagsan oo toganna ay uga bidhaameen oo noloshooda saameyn togan oo wanaagsan oo bedesha oo sida wanaagsan waliba u bedesha ta ummadooda iyo qoysaskooda iyo tooda shakhsigaaba inay kala dhex bixi doonaan barnaamijka iyo oo si xaraga leh oo kalfurnaan la inoo wadaagay Dr. Sacad Muuse Umar aadoo ma santiin barnaamijka wax la socodsiinaya anigoo Subeer Maxamed Sheekh Abu Bakar halka farsamada iyo filan qaadistana kameradana injineer Maax baa naga caawiyay habeyntii iyo farsamadii injineer Najiib Said Usmaan dhamaanba barbaarta telefishinka caalamiga ee Star TV oo isku duuban waxay kaga tagayaan in intayn barnaamij la mid ah ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh
igada qabiil way dawar jare igada qabiil way tuleeyay igada qabiil qarma ideeqay